nima axad ah 19 bisha labaad 2023 igana raali noqda maanta stuudiyo ma joogo oo hawlid baan ku yiri jiraa sadaraadii telefoonka gacanta ayaan isticmaalayaa waxna ku duubaya haduu codkaygu si kaleer ah idin soo gaari waayo maalinkii 14aad ayuu galay duqeymihii uu gacan ku dhigay Muuse Biixi uu ku hayay magaalada Laascaanood sidoo kale Muuse ayaa waxa uu sheegay in uu erga u soo diray isimada dhulbahante ee ku sugan magaalada Laascaanood si ay ula kulmaan tirada isimadaas ujeedka ay u socdaan iyo halka ay ku sugan yihiin barnaamijka ayaan idin kala wadaagi doonaa haduu ay baaween u raali ka noqdo waxa kale oo barnaamijka ku maqli doontaan sababta loo qarinayay dhaawaca taliyihii hooyada dhadiga ah ee dhashay shabaab Nuur Taani oo hadeer lagu dabiibayo Ethiopia isla barnaamijka ayaan ku iftiimin doonaa waxaan idin soo gudbiyaa warar sugan oo isla markaana xaqiiq ah runtana ku salaysan magacaygu waa Hilaacsool channelkuna waa isla Hilaacsool si aad uga mid noqoto saaxiibada ku xiran channelkan fadlan channelka subscribe dhaho isla markaana gambaleelka u furo saan wada ogsoonahay maalinkii 14aad ayuu galay dagaalkii u dhaxeeyay jamaahiirta xaquudirirka ah ee SSC iyo hooyadan dhashay shabaab ee SNM iyagoo duqeynaya waa talis naflacaariya runtii xaqiiq marka laga hadlo waa talis naflacaariya qaabka ay u dagaalamayaan waa qaabkii koonfurta argagixisada ay uga dagaalami jirtay ama qaabka ay u tababareen qoliyahan koonfurka dagaalama waa ay qoliyahan koonfurka dagaalama iyagu waa isku hal mid oo calaaqad ba ka dhaxeeya sida la wada ogsoon yahay Muuse Saaka waxa uu sheegay in uu erga ka soo diray magaalada la yiraahdo Hargeysa isla waqti xaadirkana ay la hadlayna waxa ay ku sugan yihiin Berbera ergadaasi waxay ka kooban tahay laba isin cameraman iyo adu qoliyo staff ay wataan oo aan saaw farabadnayn waa isinka guud ee beelaha Iidoor iyo isinkan kale ama suldaankan Daawud waa labada isin kaliya oo arinkan isaaq waa uu wada diiday haddaba saacadii hadda ee la soo dhaafay ayay ka hadleen isimada dhulbahante iyaga oo cod dheer ku yiri isin wiilkiisu uu duqeyn ka wado ama qori la hortaagan yahay duleedka magaalada Laascaanood wada hadalna la yeelan meeno lana fariisan meeno ta kale oo ah inta gacan ku dhigay Muuse Biixi ciidankiisu uu og dhaafayo wax wada hadal ah oo kala dhexmaraya ama na dhexmari doona isaga isimadiisu toona ma jiraan go'aanka cad ay soo saareen haddaba iyagoo aan casuumaad ka helin isimadaas horaan idin ku sheegay iyagoo aan casuumaad ka helaynin isimada dhulbahante ayay haddana iman doonaan baana idin yiri hadda hadalkaygu fiirsado waxaan idin yiri isimadaasi magaalada Laascaanood way iman doonaan ama hal la casuumo ama yaan la casuumin tiibaana maanta dhacday oo waqti xaadirkan waxa ay joogaan Berbera berina way soo aanbaxayaan oo og ayay imanayaan horta mid baan oranayaa jamaahiirta SSC isin la dilay isin la dilu leeyahay nimankan waa ogtihiin inay isma laayeen dhulbahanta asagaashameeyadii qorilugudiyo ee ku laayeen ismo waliba aan hubaysnayn iyagu waa hubaysayn kaamirooyin bay wataanba kaamirada iyo qoriguna kaamirada ka daran oo meel qorigu uusan waxba ka dilin ayuu muuqaalada ama kaamirada wax lagu duuba ay wax ku dilaan iyo qalinka labadaba hadday og soo dhaafaan jamaahiirta waxaan idin leeyahay iyo guumeys hal lagu cibaadeysto waa laga wada xaajoone hal lagu cibaadeysto labada isin hal lagu cibaadeysto waa xaqiiq weey hal lagu cibaadeysto ujeedka ay wataanna waxa weeye Muuse horta aqli male fikir male ujeedka uu ka leeyahay waxa weeye uu kaameramanka u soo raaciyay in uu beesha caalamka ka gado maadaama uu cadaadis xoogan meel walba uu ka haysto حتى وحكي اسك داي ارينكي urur Soomaalinimada Xasan Dibbu uga dagay farafar Ismaaciil Umar Geele Dibbu uga dagay xaaladda markay xumaatay Muuse maanta jiq bay ku tahay waa kaligii marka beesha caalamkii ayuu wuxuu rabaa inuu tuso inay wada hadal u socdaan iyaga beesha dhulbahantana ay kamid tahay maamulka hooyadan dhadiga ah ee dhashay shabaab ayuu rabaa inuu indhaha caalamka kaga gado taasina wax suuroobaysa runtii horta ma aha oo wax suura galayana ma aha isimadu hadaba qaab bay u socdaan horta isimadu waxa ku xardhan cimaamadahooda aan idinka dabageeyo cimaamadooda waxa ku xardhan astaama ah calanka
hooyadan dhadiga ay dhashay shabaab calankeeda saddexda midab leh ayaa ku xardhan astaamo noocyada muujinaya ayaa ku xardhan ilaa koofiyadahooda wada arki doontaan baa ku xardhan waa ay duubayaan muuqaalada iyo muuqaalo hore sidii Nuux Taaniba 3 maalin ka hor isagoo 5 maalin dhaawac ahaa oo la qarinayay ayuu 2 casho ka hor wuxuu soo duubay video la soo bandhigay oo TV-gan ay leeyihiin ku soo bandhigeen hooyadan dhadiga TV-ga SNM ay ku soo bandhigeen qaababkaas kale ayay rabaan inay sameeyaan muuqaalo hore la saaroodo laga hayo iyo in simada editing lagu sameeyo oo la dhexgeliyo si beesha caalamka looga gado ayaa loo baahan si beesha caalamka wax aan jirin looga gado marka isimadaasi hadii ay oog iyo guumeeso dhaafaan waxaan leeyahay jamaahiirta ku cibaadeysta dhiigoodu wallahi waa xalaal ku cibaadeysta aydiin raaciyo maxay tahay ujeedka Nuux Taani dhaawiciisa loo qarinayo Nuux Taani dhaawiciisa loo qarinayo horta taliyaha ciidanka waan wada ogsoonahay ciidanka dhabarkiisu istaagaa taliya la dilayna waxa ka horeynaya in horta ciidanka ka horeeya la soo baabi'iyo ujeedkaas horta koowaad ee keenaysa in dhaawac la qariyo Nuux Taani ah maadaama khalkhal uusan gelin ciidankan ku hareeraysan magaalada Laascaanood ee jabhadan hooyadan dhadiga ah ee dhashay shabaab aysan ku argagixin ayaa loo qariyay ta kale waad saragtaan oo meel walba baroorba isqabsatay Allahu musta'an waqooyi dhan baroorba magaalooyinkan Hargeysa Burco Berbera baroor islaamiyi waa wada barooranaya maxaa loo waayay hooyada dhulbahanto barooranaysa waayo hooyada dhulbahanta sababta ay u barooran weydaan idin sheego hadaba hooyada dhulbahanta sababta ay u barooran weeydo waxa weeye wiilkeedu waa xaq u dirir xabaduna dhabarka kaga dhacdo ee sujuudda ayay kaga dhacdaa hooyadan iyo doorna maxay la barooranaysaa waayo waxay la barooranaysaa waxay og tahay wiilkeedu inuu ku socdo xaq darro inuu ku socdo una soo dirtay raalina uga noqotay dhiig dhulbahanta inuu daadiyo taas ayaa baroorta geenaysa oo marwalba xaq ahliya hadaba Nuux Taani halkuu ka dhaawacan yahay Nuux Taani wuxuu ka dhaawacan yahay sinta dambe waxa ka dambe waa sinta ayuu ka dhaawacan yahay nin walba oo sarkaala oo halkaa lagu dilay dhabarku ka dhaawacan yahay ama ay xabadu kaga taala mid walba maanta dhaawac oo askarta SNM kamidana dhabarku ka dhaawacan yahay halka maxaa daliilkaaga ah iyagoo wada cararaya inay xabadu ku wada dhacdo iyagoo wada cararaya inay xabadu ku wada dhacdo marka jamaahiirta waxa leeyahay nimankaas isimada lagu sheegay ee labada nina waa suldaanka guud ee Idoor iyo suldaanka Daawud labada nin iyo kaameramaankooda oo ay wataan mid baan idinka ilaaway taan idinka ilaaway waxa weeye Muuse qorshe kale oo ah wuxuu wataa isimadaas in uu isaga laftirkiisa uu toogto markay og soo dhaafaan oo laga soo dabadiro ciidamadiisa ciidan kamid ah si uu dhulbahanta dusha uga saaro oo yiraahdo dhulbahanta isimadii bay laayeen waayo maanta Idoorkii laftirkiisii ayaa sii kala baxay oo waayo waan ognahay dagaalka waxa ku baaba'ay habar awalna ma aha waa garxajis iyo waxa u badan habar jeclo ba maanta u badan waxa ku baaba'ay hadda isimadan socda garxajis uma wada dhamma حقيق وين تان كان ليو وحول ربا إن هو هالك كوبا لا ميد بينو قكرتا لا بعض ميد بينو قكرتا إن هو هبرت عليه جرحت هالك كوبا بيو يدور أنتي سكالنا بيش عند حنا أوربو إنه حكم مقونيو أما اسمه ده أمر كتب تكذبوا كذا دعيو ورسمه دين دول بهنت عليه أو يدور كي سجلت كسر جيري وهالك كوكعيو waxaa leeyahay wixii ka soo cusboonaada arinkan iyo odayaashaas waan idin la soo xiriirin doonaa oo waa idin la wadaagi doonaa horena waan idin ku sheegay ismadaasi hadaysan helin baan yiri wax casuumaad ah waa ku yimaada maanta tii waa dhacday oo way soo anbabaxeen waqti xaadirkan ay idin hadlayeen magaalada Berbera ay ku sugan yihiin bari bayna ka soo anbabaxayaan talaaba ayaan ula soconaa Muuse sida ula soco war waxaan idin leeyahay channelka subscribe kay lowdeen subscribe dhaha fadlan waxaan ka afeefanayaa maadaama aan mobilka gacanta galabta isticmaalayo codkayga adoo kale noqon waayo in la yar raali noqdo sida iyo nabadgelyo